waxaa maanta kaalmo raashin la soo gaarsiiyay cisbitaalka waalida ee Maandey deeqdan oo ka timi marwada koobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Aamina Waris deeqdan ay wareejiyeen ururka qaranka ee Now ee gobolka Togdheer ayaa dhinaca kale munaasabad lagu xusay 8 Maarch ee maalinta haweenweynaha adduunka ayaa munaasabad lagu weyninayo lagu qabtay magaalada Burco ee soo qaban qaabiyeen ururka haweenka ee qaranka ee Now ee magaalada Burco munaasabadani ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Togdheer gudoomiyaha ururka Now iyo waliba marti sharaf kale goorayna waxa munaasabadaas ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Togdheer Marwa Deeqa Weydaar iyo Marwa Basbaaso oo si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay xambaarsan tahay maalintani in loo baahan yahay in la xuso maalinta haweenka adduunka oo ah bay yiraahdeen maalin karaamo iyo sharafa ka mudan oo maalinta ay tahay maalinteedii 8 Maarch waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo lagu gaarsiiyo waxaan aad iyo aad aan ugu darayaa salaam iyo hambaliyo marwada madaxweynaha oo iyaduna noo soo dhiibtay hadii ilaahay ka dhigo raashin aanu siin doono dhakhtarka tiibeyda iyo dhimirka inaan maanta halkan fursad kaga faa'iideysto golayaasha baarlamaanka oo ay hortaalo kooytadii dumarka ee baarlamaanka doorashadiina ay soo dhowday taas ayaan leeyahay kooytada dumarka aan ku guubaabinaya marwada madaxweynaha iyaduna kaalin weyn ka qaadatay oo mugle oo leh dumarka kooytaha la siiyo in iyaguna inoo ogolaadaan kooytadii dumarka ee baarlamaanka waxa isaguna halkaas ka hadlay munaasabadaasi barasabka gobolka Togdheer oo sheegay inay maalintani tahay maalin mudnaan iyo karaamo iyo ciise ku dhexle bulshada waxaana uu tilmaamay in maalinta si weyn loo xuso qaadmo hooyooyinka halka fadhiyo iyo aabayaasha soo aanaan badnay haddana kulay fariintu waa gaaraysaa sanadkan ku calaamadsan in hablaha wax la baro oo loo bilaabo waxa weeyaan waa la soo bari jiray laakiin waxa weeyaan astaanta gaar ah waxa loo siiyay haddii ay dabacsanayd hal adkeeyo oo hal oogo oo hal weyneeyo oo wixii ka dhinaa hadday boqolkiiba 30 habluhu ku wax barta ahaayeen oo iskuulada hadda ku jira boqolkiiba 50 laga dhigo munaasabadani ayaa ka mid noqonaysa munaasabadaha faraha badan ee daafaha dunida ka dhacay lagu xusayo 8 Maarch ee maalinta haweenweynaha adduunka Khadra Cabdirasaaq Suleybaan shabakada Hadwanaag News magaalada Burco.